timaan wacanba midibkaagu taanku yaho xidigtii na taageerta dhexda kaaga sii taabay waxaan la ogayo inadu iiga qubanayse ikhtiyaar nin loo diido la adoonsadanahay geela oo dhacamba toogasha uu bareertaane ma dhulkiina oo tegayba nina dhagax u tuurayne السلام عليكم قفل قفل كرسيgiisa ha ku laabto idinkoo mahadsan xafladda ayaan daafurnaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa qof kasta magaca iyo maamuuska ku fadhiyo halkan ayaan ku salaamayaa caaway sharaf waxa inoo ah jaaliyada UK gaar ahaan London inaad nala soo dhaweysaan mas'uuliyiinta halkan noo fadhisa caaway oo ugu horeeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waafinta dhaqanka iyo dalxiiska أنا حلوان كتر سندورة فدرال كاهي صوماليا مدني آدن إساق علي يسودو كاي أقاسمها مدحتوية دورة فدرال كاهي صوماليا مدني عبد النور محمد أحمد أن سودو كاي وحان سيقونية أن نقوم هالعلنها يا أحمد ناجي أنا قلت قيم قال حفلة نروح بدنا نسولوين نوصير بحجينك waxaan si gooni u mahadnaqayaa jaaliyada Soomaaliyeed dhamaantood halkan caawa naga soo qayb galay xafladan ku soo dhaweeyna wasiir ku-xigeenkeena Hussein oo halkan isaguna inooga jeedi doona hadalkiisa ku habboonaa soo dhawo mudane waxaan idin sheegayaa inama yahoon yaryari hadalka aad ku hadlaysaan wasiiradii hore noo iman jiray sidaasoo kale haayeenoo islaantaa ruyootay haayeen waxay noo sheegi jireen laakiin sayidka waxaan sheegayaa haddaan la yidhaa hadalka aad maanta nagu tidhaahdaani yuuna dib idinku soo noqonine ka fiirsada oo hadal mudakara oo waan oo waxgarad oo taariikhda galan dhaha haddaase maanta hadalka aadna tidhaahdaan ama waxaad noo sheegtaani hadduu idinku soo noqdo annagu maskaxdayada maaha kombiyuutar kuma waxayno laakiin maskaxda yaan ku rikoor garaynaa rikoorkaan gelinaynaa waxaan ku dardaaraya hadalka oo ku soo gaaminayaa hadalkaad doonanaysaani hadal ha ahaadee aan idinku soo noqonaynin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أدي ما سنتهي سلطان وحنجعل مركانا هنا ميكروفون كسو دweeyo مريم محمد جمعالي مريم جعيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مرت شرف تعاون نو joogto wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha dhamaan odayaasha gabdhaha fanaaniinta tiifiyada waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa caawa sharaf noo ah in aan halkan ku soo dhaweyno dowladdeena madax ka socoto oo dowladda ka mid ah waxaan si qaasa salaan idinkugu diraynaa inaad naga gaarsiisaan madaxda qaranka Soomaaliyeed dhan walba oo yihiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa dalka ka socdo
waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa Soomaaliya way daalanta wax badanna way soo martay maantana alxamdulillah waa maalin aan garan karno wadada lagu taagan yahay nooca ay tahay anigu waxaan ka mid ah dadka aad u waaweyn wax badanna soo joogay dowladihii soo jiray ilaa iyo ku meel gaar ilaa iyo dowladeena dhexe Soomaaliyeed intaba soo joogay ilaa iyo dowlad la'aanta intay dhacdana waxaan dareemaynay walow maalinba maalinta kale laga soo roonaanayo maantana waa maalin aan saaranahay wadda aan arkayno inaan meel fiican u soconno dowladda wax ma qaban karto baarlamaanka kaligiis wax ma qaban karo madaxweyne haddaanan annaga garbe ahayn waxaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo jiraan kula dardaarmaya anoo hooyo weyn ah nabadoon ah abwaanad Soomaaliyeed walaalayaal aan garbaha iswada qabsano far kaliya fool ma dhaqdo waxaan salaan qaas rabaa inay iga gaarsiisin wasiirka warfaafinta Master Maareeye oo ah nin Soomaaliya ah nin qaran ah nin Soomaaliya inay socoto aad iyo aad u jecel gobernatooraha gobolka Banaadir madaxda qaranka dhamaanteed waxaan leenahay indhuhu nolol bay arkaan iftiin run ay arkaan aan leenahay iftiinka runka Allah noo kordhiyo dadka Soomaaliyeed lama sii joogaaye qof walba taariikh ka tag oo nabadda iyo horumarka dalka Soomaaliya aanu ka wada qayb qaadano haddaan gobol joognay haddaan degmo joognay haddaan Yurub joogno qof walba isxilqaan kaligaayo Soomaalinimada ka tali qabiil waxba nooma tara Soomaalinimadana deeqda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa mahadsantiin kasoo dhawaysaan Dr. Saciid Sheekh Abuukar waan asagana siinayo mikrofoonka labadiisa erey ugu habboon xafladda caawa soo dhawo mudan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaameynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Aadan Isaaq waxaan salaameynaa agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed guddigiina wayna salaameynaa si aad u dhantiin xafladda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii hadalka ma raba inaan ku badiyo madax badan baan sugaysaa dad badan baa hadlaya madaxdan dhegeysan doonaa talooyinkooda iyo tusaalooyinkoodii marka waxaan kale inii sheegaynaa anigoo ku hadlaya anigoo ah jaaliyadda guddoomiyaheeda halkan waxaan rajaynaynaa inaan horta waxaa la yidhi ninkii tiisa wax u tara ayaa dadka kale wax u tara la yidhi muqsanta tiisa daryeela mid kale ku dara annaga dalka annaguna sugaya indhihii baan nahay aqoon-yahankii baan nahay dalka annaguna sugaya laakiin dalka intaama loo gaarin annagaa kala daadsamaysanhayn waad ogtihiin dhibaatada dalka annaga haysata ha noqoto arrimaha bulshada ha noqoto arrimaha siyaasadda ha noqoto carruurteenna dhibaatada ku dhexaysa hadna waxaa looga dhexi karaa dalkana aan wax u tari karna inaan mudoowno war diyaar ma u tihin in la mudoobo magacodku waa gaban yahay xoogaa diyaar ma u tihin waa mas-uuliyadada qaateen waxaan doonaynaa inaan sidaa u jeclahay inaan kusoo dhaweeyo Dr. Maxamed Cabdiraxmaan ereygiisa ugu habboon caawa soo dhaweynta mas'uuliyiinta bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo wacyigelinta baan u malaynaya qayb kale ku jirta aan u malaynaya Aadan Isaaq Cali agaasimaha waaxda warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed agaasimaha waaxda brotokoolka madaxtooyada Cabdi Cumar halkaas ku gabanaya baan u malaynaya halkan filay in kursi loo dhigo caawa waan runtii aad iyo aad halkan uga hambaliyeynayo aan ogahayna nin runtii xilkaa ka soo bixi kara inuu yahay Cabdi Cumar oo inaga mid ahaa oo jaaliyadda ka mid ah guddoomiyaha jaaliyaddana ahaa dhammaan waxgaradka odayaasha golaha guurtida jaaliyadda guddiga jaaliyadda odayaasha hablaha mudanayaal iyo marweyn dhammaantiin waxaan ku salaamayaa fanaaniinta abwaankeenna weyn Axmed Naaji macallin ustaad Axmed Naaji fanaaniinta bahda muxuu ahaa warfaafinta ee reer London gaar ahaan TV-geennan SNTV iyo haddii kuwa kale jiraan
dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa ciddaan ilaaway hadday jirtana raalliha iga ahaadee dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaaliyadda ayaa joogta waana jaaliyad waad la socotaan jaaliyad qaaliya aad iyo aad qaali oo runtii ku wanaagsan xurmaynta iyo soo dhoweynta madaxdooda iyo inay dhegaystaan talooyinka wax kale war kale ma jiro soo dhowaadaan leenahay dadkiinii weeye aad bay u jecel yihiin warkiina waxaan jecel lahay inaad muxuu ahaa nooga warantaan dalkii dowladdii warbixin aad naga siisaan daacad baa loo yahay dowlad kasta oo timaadana jaaliyadda tan way taageertaa waa la shaqaysaa waxaan la rajaynayaa sidii hadda laga dhawaajiyey waxa qura aan codsanaynaa waxaa weeye safiirkaasaanu aad ugu qaylinaynay weli nama soo gaadhin war farxadun baa nala siiyey ilaahay ha ka dhigo sidii cigaal shidaad weeyaan ilaahay riyo kaba waxay la tahay hadal badan halkan loogama baahna hadal badan hal ma buuxsho way caddahay ujeeddadaynu xafladan u qabannay waxaynu u qabannay inaan soo dhoweyno sidaynu hore u soo dhoweyn jirnay madaxda dowladdeenna dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ee halkan inoogu yimi martida inoo ah marti sharafteenna wasiir ku-xigeenka iyo muxuu ahaay agaasimayaashaba agaasimaha warfaafinta madaxtooyadaba waxaan leeyahay soo dhowaada halkan jaaliyadii labeentii ugu mahadnaqayaa jaaliyadda Soomaaliyeed oo intaaba soo gaasisay ee garabka soo siisay ee aan la'aantooda aan waxba qaban karin waxaan kaga mahadcelinayaa sidoo kale inaad nala soo dhaweysaan qof kasta oo magaca maamuuska dowladda federaalka ku yimaada sida heer caalami oo nagu soo dhaweyseen waan kaga mahadcelinaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK dhamaanteed fanaaniinta iyo bahasa xaafadda ma ilaabin ayagana aad iyo mahadsan yihiin hadduu ilaahay idmo markaana bal waxaan jeclahay mikrofoonka inaan ku soo dhaweeyo qaali عبدو قال بيرلا وعاوي حفردا نلا سو قبل قابسay ahna gudoomiyaha haweenka jaaliyadda UK oo aan jecelahay inaad sacab ila tuntaan oo aad la soo dhaweysaan alaabtan quruxda badan ee xafladan caawa qayb weyn ka qaadatay markastana garab taagan dabcan dhamaantiin haweenka qaranka Soomaaliyeed inta meeshaan fadhisay inta maqanba waan kaga mahadcelinayaa taageeradiina qaali biyarla ku soo dhaw mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم dadku waa badalaya Soomaaliya ha noolaato codkiina waa gaabaya Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qarnimada Soomaaliyeed ha guulaysato gabdhaha Soomaaliyeed ha guulaystaan ragana ha ku soo dabartado ha soo dabagalaan ayagana ha guulaystaan mudanayaal iyo marwooyin jaaliyadda Soomaaliyeed ee qiimaha badan ee qaayaha badan muwaadiniinta ah oo had iyo jeer u taagan mas'uul walba ka yimaado dowladda federaalka heer madaxweyne heer xukuumad heer baarlamaan soo dhaweeyo iyo wasiirkeena warfaafinta wasiir ku-xigeenkeena warfaafinta iyo agaasimaha guud ee warfaafinta ee madaxtooyada قديم وحيد السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن آدي ديكم هالعلنا يا جالية الصوماليات UK وهاد يجرو تاجن إنه دلكودا يدكودا يدين تودا بيجرب يستاجن جعل قرن موارد إنه الصومالي هشلو مدن وسير جالية دعوة هرت هذا تاجن أما أجازمة وشعب كيني وجالية هاد يجر كجوابته باهي والبا ظروف والبا دلك كدعده وتاجن وحتى سدلين وتهاي 14 أكتوبر صابر قرحي جنسيد كهاي كدعي دلك إنجليزك لما سيحنين لما هو ينين وأنا دريم كرتان باقية دي جالية الصومالية UK كجوابين وحلاقي هاي جالية الصوماليات ودل كان إنجليزك مدن وسير جالية دان وجالية وتاجن إنه دلك هرمر وجار وجالية وتاجن قرن مدى الصومالي إنه وارته وجالية وتاجن مر الله مركو دلك حالات قال إنه سمت بحسو تاجن واي مركو بعد يا مر لبعض يا مرسد حضرت كسر دوادة جالية دين الصومالي UK مركا كلا وحن هاد علينا يا تيفيجا قرنك سيد قيمها بدن أو قايها بدن أو عاوة أنت ردد أو سوياري باقينا نجنا عندنا لوجس الجوابي وحن آدي عن رمنا إن معناها عن همبليينه دولة الفدرال تلابوي كأيدلك يدلك كودو وحن بقادرينا وسارد ورفافينتا هرمرك قيبها كلا دون ورفافينتا يكجارتنا وبقادرينا سببته عاوة حسلان كاجسدا
mudane wasiir nin jaaliyadda ka mid ah oo aad iyo aad qiimo u leh oo Salmaan Saciid Sheekh Maxamuud yiraahdo oo la yiraahdo Saciid Soona kuna soo barbaaray ku soo koray wax ku soo bartay wasaaraddaas wuxuu yiri salaan 114 wasiirkii agaasimaha iga gaarsiin waxaan jeclahay inaad iga guddoonto salaantaas mudane wasiir waxa kale oo leeyahay jaaliyadda Soomaaliyeed ha noolaato sida ay dalka iyo dadka ugu taagantana waa ka mahad celinayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh odayaasha guurtidana waxaan leeyahay noolaada fanaaniinta noolaada haweenka noolaada ahla wa sahlan أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay and aad iyo ma santahay qaal beerula aan kaaga mahad celinayna waqtigaaga nadiif qaran oo ah gudoomiyaha haweenka qaranka ee UK nadiif ku soo dhaw mikrofoonka dabcan waxaan codsanayaa qof walba inuu soo gaabiyo si aan mikrofoonka isku deeqsiino ilaahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa waxaa farxad inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xildhibaan aadan iyo agaasimaha madaxtooyada ee warfaafinta mudane cabdinuur maxamed caawa waxaa farxad inoo ah TV-ga qaranka oo xafladan quruxda badan noo agaasimay oo ugu horeeya Yuusuf Garabey iyo Maryan Gowle oo isku howlay inay hawshan quruxda badan ee noo isugu keen wacaan waxaan leeyahay Yuusuf Garabey agaasimaha TV-ga qaranka aad baad u mahadsan tahay marka waxaan kaloo soo dhaweynayaa odayaasha dhaqanka waxaan soo dhaweynayaa siyaasiyiinta waxaan soo dhaweynayaa dhalinyarada waxaan soo dhaweynayaa fanaaniinta caaw farxadeena lama soo koobi karo waxaan kaloo halkan islaan ugu dirayaa madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo oo aan leenahay guuleyso mudane madaxweyne waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha dalka ra'iisul wasaare Khayre waxaan u jeednaa hawsha culus ee dalka ka wadaan ayaga iyo garbahooda ama dadkay wada shaqeeyaan ama dhamaan dowladda waxaan kaloo salaamayaa First Lady Zainab Cabdi Macalin waxaan salaamayaa gudoomiyaha haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe waxaan salaamayaa madaashada kunkaroon wasaaradda isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye ayaan halkan ka salaamayaa waxaan leeyahay caawa oo aan joogno duniyo dowladdeena federaalka ayaa caawa nala joogta sharafti iyo wanaagga ayaa nala jooga agaasimihii madaxtooyada iyo waxaa nala joogay warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta caawa farxadeena lama soo koobi karo iyo weliba astaanta qaranka Axmed Naaji Sacad الفنان الملحن ما شاء الله marka waxaan idin leeyahay ciyaalka xaafadda caawa guuleysta TV-ga qaranka SNTV agaasimahayna Yuusuf Garabey sida quruxda badan oo caawa suukaaya yeertay guuleyso wasiir soo dhawow agaasimo soo dhawow waa ku faraxsanahay imaatinkiini dowladdeena ayaa idin ka soo dhaweysayna dowladda ku nool baan nahay soo dhawaada welcome to London agaasime cabdinuur maxamed axmed oo soo dhaweyn doona wasiirka mikrofoonka soo dhaweyn ilaahay idankiis hadduu ilaahay waxaan sugnaa waa qodobadaha madaxda waan ka mahad celinay waqtigii mar labaad iyo saddexaad mudane cabdinuur ku soo dhaweyn hadda يعني وزير حلبان آدم إساق علي أنا كوين ده أهان لكن أساق وزيرة أساق حلبانة مركب وحي أهيد وحيد إلا ده وزير كي يوفد الله صعدة لكن سيد الله ما موسى إلا إمام وصلتي برتقال عام وحصح معها ده هذا كل الله طلاب ديرين وحلقيها وأنا مقال الله كصدعه مركا جالية UK وحن ربعنا كلا قيب قاتو سدوينتا وزيرك وأن وفدي سكمدها marka rabaadna waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo runtii xafladan quruxda badan ee caawa aad noo samayseen aniga wasiirka markii Garabey iyo Xanaan ay nala soo xiriireen waxaan u haysanay kulan xiran oo dad kooban ay yihiin laakiin de soo dhaweyn noocan runtii maanan filaynin marka mar kale waxaan leenahay waa mahadsantihiin soo dhaweyntiina dad waxaan kaloo rabaa waxaan ruqsad u haystay dowladda inuu u hadlo xukuumadda nabad iyo nolol u hadlo wasiir aadan aniga hadda ruqsad uma haysto laakiin waxaan rabaa wax yar inaan ka dhaho jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK iyo doorka ay ku leedahay dowlad dhisida Soomaaliya dowlad dhisida markaan leeyahay ma aha intii idin ka soo tagtay
xilalka dalka ka qabatay ee wasiirada noqotay ee xildhibaanada noqotay ee maanta ka dhex muuqda laakiin waxaan ula jeedaa doorkii aad ku lahaydeen badbaadinta shacabka Soomaaliyeed xilliyadii ay waddanka ka jirtay shaqo la'aanta xilliyadii ay waddanka ka jireen abaaraha iyo culeysyada fara badan oo colaadaha ugu badan yihiin tusaalaha mar walba aan maanka ku hayana waxay tahay aniga yaraanteydii markii aan soo caqliyeys ilaa maanta abtigay iyo adeeraday oo dalka ka soo qaxay oo qurbaha soo galay oo qaarkood UK yimaadeen lacag ay soo direen iyo contribution ay qoysaskeena iyo nolosheena iyo waxbarashadeena ku maareeyeen ayaan kaga soo badbaadnay aniga iyo aadan iyo inta la midka ah inaan maanta noqono waxa aan nahay inaan soo istaagno meesha aan maanta taagannahay in anagoo da'daan jirna aan noqono dad mas'uuliyiin oo dadkooda u khidmeeya marka runtii jaaliyadaha Soomaaliyeed jaaliyada UK hormuudku u tahay waxaan leenahay idinku faanaynaa doorkii aad ka geysateen badbaadinta qoysaska Soomaaliyeed fursado abuurista shacabka Soomaaliyeed inkastoo ay tahay de wax qof walba oo muslim ah Soomaaliya looga baahan yahay dadkiisa dhaqaaleeyo haddana runtii waxay ahayd rakarooni ama gabarkarooni inaad runtii ka warqabtaan dadkii aad dalka uga soo tagteen taasna runtii bogaadin aad ku mudan tihiin isxilqaanka hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhisaysa tiyaatarkii iyo madxafkii iyo maktabadii iyo xarumihii guud danta guud isxilqaan ka horreeyay oo bulshada Soomaaliyeed ku badbaadiseen aad runtii soo qabateen waxaan rajaynaynaa inaad markana u rabtaan inaad dowlad dhisidda lugaha la soo gashaan oo kaalin mugla ka qaadataan suldaan maxamed xuseen siciid oo nala kaftamo wuxuu yiri waxaad halkan caawa ka dhahdaan waan idinka guntaynaa waan idinku xisaabtamaynaa wasiiradii iyo dadkii hore imaan jirayna fariimihii ay nooga tegi jireen meel aan ugu qornay marka waxaan leenahay suldaanow haddaan hadda wixii aan kuu sheegno ood meel ku qorato haddaan fulin weyno maba idiin soo laabanayno runtii anigu kalsooni badan aan ku qabaa in Soomaaliya ay hore u socoto mana aha inaan administrationkan iyo maamulkan hadda jira aan ka tirsannahay laakiin 10 sano ka hor meeshii la joogay inaan maanta la joogin hore loo socdo maamulku ka dambeeyana inuu dowladnimada wax ku daraayo waxaan rajaynaynaa in sida maanta dhalinyarada door muuqda ee dowladda ugu leedahay ama xildhibaanaha noqdaan ama wasiiraha noqdaaneen in jiilalka naga dambeeyana sidaas oo kale ay wax ka xoojin doonaan dowlad dhisidda Soomaaliya waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hal qodob oo iga guuxaya oo meel walbana lagu weydiiyo oo ah waxyaabahan fake newska loo yaqaan ama misinformationka faraha badan ee baraha bulshada la isu mariyo mar walba waxna laga weydiiyaa qadiyadda badda wasiirka sharaxi doona qadiyadda badda iyo meesha ay dowladdu ka taagan tahay laakiin aniga shakhsi ahaan maadaama aan u qaabilsanahay warfaafintii madaxweynaha iyo madaxtooyada waxa mar walba igu soo dhaca hadda inta in la fadhiyay emailada ii soo dhacay qaar yani dad Soomaaliyeed oo dareen ka qaba war arrintii badda xagee maraysaa ayaa mar walba isweydiinaya laakiin waxaa ogaataan gaar ahaan ana wariyaasha la hadlaayo weliba intooda badan saldhigooda yahay London يعني موقف كنا نوع عدينا قضية داس محكمة دي تعالى محكمة داس أنا عن كجاريسة ملاحظة دولة فدرالية الصومالية مدحونه وجوه الريانة وحكوا عن حدي لبدا الدولة كل شيء معين وده هذا الذي هرجع هاي دولتي أنا نجوه الرئيس كشيء إن عدالة الدون كلوه كلا بحق مجرد وحكي الله بشاء مجرد وحنا لسه الماضي وحنا فرقنا ورياشة هلكن جوي معلمين تاه عيال يا أبو بكر يا نكلي راد دراني كم دهين يكون ضلكي جوج انتبه إن أضمانك كويسان قد يظهر نوع عاص وما بهنا إن لو عيارة وما بهنا إن لو كفتم وما بهنا إن مدح حفيز قد إذا يكون كتج أنت والجودة لقيه وأهلنا بهنا كم وجن سكدوبني سيان سكدوبني وموجننا وحيابها شعاعات كأهي وربعين تشيو الغريس كسر قضية بدر مرة من إلى نوتر جنتان أو شعب كان نوتر جنتان وحارنا أنك أنت نجيستان نوكل صنعتان إلى الدشة الصومالية تبصر ugu dambeyn sidaan hore u sheegay wasiirkan ku soo dhaweynaya aniga halkan meeshan hadal igama furna waa dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinaynaa waxaa si gaar ii taabtay gabadhii halkan ka hadashay abwaanadii Maryam Jacayl waxay tiri indhaha nabad bay arkaan nolol iyo iftiin bay arkaan annagana noloshaas iftiinkaasaa noo muuqda rajadii dowladnimada Soomaaliyana meeshii laga soo bilaabay markii carta la isugu tagay ilaa maanta in dhagax lagu daro mooyaan dhagax lagama dhimin waana ku sii dari doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay xildhibaan wasiir aadan isaaq cali inuu kelmadii ku habboonad meeshaan ka dhaho wasiir soo dhawo
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين آدي إذا كعجم هالعلنا يا جبودة دقودة للينيرة هبلهن يهويين كن حلقة نذكر الذين ساق عني حقيقة ما ننتبه إن كبريتو للشقلة أنا عاو هالك وقت بدأ إذا كعجم قادم لكن وقت كان بدأ حق هذا الوجو هذا إذا كعجم هتعلنا يا سودوين تقرحونات وأنا كشفين دولنا أنا هو حنسكا هاي local product مرك جوري سيا صاب حواي هذا إذا كان هاد علينا يا وحاب نوفرتين إنها وحاب نتستين رجع شلي أجاسم عبد النور الشيء ماشي أنا قصو قادين ما أنت إذا كهال كان إنك يلي وحاب نقص عنه وتلدينا إيوه ورجلينتينا يصير أنه حاجيسان إن إجهيسنا أنا وحاب نهاي سيدا وجاسك الشيء ضد dhalinyarada markii wadan soo korayo Soomaaliya oo kala dalkeena waxa loo baahan yahay 24 saac in la shaqeeyo 20 saac annaga maanta jaaliskii dhalinyarada asaagayga ay haystaan ma haysto dibkan iyo waqtigan adag iyo dhafartan waxaan ugu jiraa waa dadkii shalay igu soo tacabeelay igu sii tirbeelay inaan abaalkooda u gudo waxa ugu yar aan ugu abaal gudi karana waxa ay tahay inaan shaqeeyo sida aad ka warqabtaan nidaamka dawladnimada ee la kala dhaxlay ee Soomaaliya tan iyo markii aan burburka ka soo noqonay maalinba waxba lagu daraayay meesha aan ka imaanay iyo meesha hadda aan joogno waxaan aaminsanahay iftiin baa inoo muuqda kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee London iyo qurbaha qalana ma ahan wax qarannimada iyo wax qoseeye ee wax maanta laga hadlayo waxa ay tahay sidee wax u hagaajinaa sidee wax u saxnaa talooyinkiina waan qaadanaa wixii kale oo dhaleeceedna annagaaba diyaar u ilan eed annagaa soo doonanay marka xiga xaqiiqdii qarannimada ayaa wax walba ka muhiimsan maanta waxaa jiro cadow badan oo dalkii maanta soo guriyeynayo wax kalena ma ahane dadaalkiina iyo meesha aad soo gaarsiiseen jealous iyo ka xumaan weeyaan Soomaaliya sidee madax kor ugu soo qaadi kartaa waay annaga la rabaa inaan u milowdo sidii maanta qarankeena aan u samata bixin lahayn waxaan jeclaan lahaa fariintayda caawa inaan codsi aan idin soo gudbisado oo ah shakhsiyaadka xilka haya iyo qarannimada inay idin kala socnaato taasoo ah maanta qaranka berito annaga waa baxayna tii alla noo imaan karto ama waxa xilkiya waqtigiisa dhammaan karo laakiin qaranka Soomaaliya waa joogaya waa jiraya idinka la rabaa marka inaad wax saxataan oo waxa isku keentaan hooyada qurbo joogta tihiin sida aan aaminsanahay Soomaaliya meesha jaaliyada ugu badan ee qurbaha u soo barakacay meesha ay ku nool yihiin waa London idinka la rabaa dadka inaad isku keentaan oo isku soo jiidaan wixii wax saxitaan diyaar u nahay maanta qaran dalka Soomaaliya ma dhahayno annaga wax walba annaga sameyn meesha aan ka keenay meesha maanta uu marayo waxaan aaminsanahay meel la iskala xisaabtami karaa maanta taagannahay shalay hadii la lahaa wax lagu wada hadla aysan oolin maanta waxaan jihaysan annaga u bareeray in la xisaabtamo afar tubooda dalka ku jihaynay qorshayaal iyo waxaan keenay milestones oo aad nagula xisaabtami kartaan 2020 markii loo gaaro aad soo fariisin kartaan ama aad ugu abaalmarinaysaan ama aad dalka noogu ceerinaysaan haddii aan sii joogno waxa aan haysanaa sii dhaqaajin doonaa haddii aan baxnana kan imaanayo meel uu wax ka bilaabo haystaa tan xigta qadiyadaha maanta taagan oo walaalkay Cabdinuur uu ka dhawaajiyay qadiyada badda aad u ragaadisay dadkeenu kala geysay mowqifka dawladda uu cad yahay kaliya waxa oo aad nagula xisaabtami kartaan 2020 markii loo gaaro aad soo fariisin kartaan ama aad ugu abaalmarinaysaan ama aad dalka noogu ceerado uu cad yahay kaliya waxa dhiman kaalintiini shacabka Soomaaliyeed maanta meesha aan taagannahay idinka naga sii dhaqaajin karo dadka wax nagu haysta waa ogtiin sida ay u midoobeen mas'uul ilaa ay kan ugu hooseeyo maanta way ka wada siman yihiin laakiin qadiyadaha qaabta daran ee ku dhisan cuqdada qabiilka iyo shakhsi naceebka ayaa maanta waxa ay gaarsiisay in badeenu shaki la geliyo ma mudneen waxaasi iyo wax la mid ah in ay qof Soomaali xataa damiirkiisu nool yahay ku soo dhacdo waxay ahayd sidee waxaynu ku soo dhacsan karnaa maanta inaan ka hadalno ma aysan mudneen maanta in la dhaho wixii la celinaya iyo wada hadal iyo wax noocaas waxaan si cod dheer ku cadeynayaa
موقف كمدحوينه محمد عبد الله فرماجو ku tacalluqda arrintaasi waa ay caddahay waa biyo kama dhibcaan inta ay nagu jirto ama neeftu ay naga baxayso marnaba lagama noqonayo shalay meesha aan soo gaarsiisana kasii kaxaynana haddii aan dhamayno ku guulaysan wax walbana idinka bilowdaan idinka idinku dhammaadaan codsi ayaan u badinayaa hadalkayga hadal yaqaanna maahi hadalladana ma heli ogi cunug yaroo hadda soo baxaya iska ahay waxbarashaan ku jirnaa talaa u baahannahay annaga halkaan uma taagnin inaan idiin faano iyo waxaan aan idin idhaahno wax waa qabanay indhihiinaa muuqda wax walba waa u jeedaan waxa naga dhiman ee idinka aad arkaysaan inoo dhammaystira waa codsi mar labaad iyo mar saddexaad aan soo wada fadhiisano miiska aan wada xisaabtano ma aha in bannaanka iyo waxyaabahaas mar raba inaan kusii dheeraado waana mahadsantihiin waana idinkaaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweyntiina quruxda badan waana ka sheekayn doonaa halkaana inooguma ekaan doontee waxaan jeclaan lahayn af dowladeed xaashihu ku yaallaya qoraale inaad noo keentaan oo qof walba noo keenana 6 bilood ay soo socoto uu nagula xisaabtamo aniga iyo walaalkay cabdinuur والسلام عليكم ورحمة الله